waxaan doonayaa inaan halkan uga faa'iideysto wasiirka waxbarashada aan ahay horta waxbarashada goobaha ee la xidhay kala reebid ma leh ilaa waxay ka soo bilaabayaan malcaamada iyo kuwa barbaarinta caruurta dugsi hoose dhexe sare jaamacad maxad kuwa luqadda lagu barto kuwa kombiyuutarka lagu barto meel wax lagu barto xitaa meesha gawaarida lagu barto meel wax lagu barto oo furnaan karta ma jirto laga bilaabo 19 bisha saddexaad oo maalinta khamiista muddo 4 toddobaadaba ayay xidhnaanaysaa waa kow si anigoo fursadda ka faa'iideysanaya markaa waxaan doonayaa macallimiintii heerku doonaha noqday in fursaddan aan uga faa'iideysto halkan fariin aan uga dira macallimiintu inay caruurta berito oo arbacaa iyo maanta kuwa gelinka daba dhigta inay siiyaan casharadii ay soo akhri lahaayeen muddada 4 toddobaada si aanu waqtigu aanu uga lumin oo ay siiyaan wixii ay ka soo shaqayn lahaayeen shaqo guri iyo waxay soo akhri lahaayeen caruurta iyo macallimiintana waxaanu doonaynaa in aanu idhaahno fariinta waa inay gaarsiisaan guryihiinii iyo wacyigelinta waxaana la yidhi qof kasta oo isku arka de wasaaradda caafimaadka ayaa wasaaraddii astaamihii ay wasaaradda caafimaadku sheegtay in aanu goob la isugu imanayaba aanu iman masaajid ha noqdo meel kale noqotee uu meel caafimaad tago